وشاكتين فرحية شاكتين فاضمين وقتت وفهمت عبتي وقتت وفحسك ولا دقر فيها دقر fanaaniinta farxiya fiska iyo faadumiina oo show ay ku qabteen magaalada Paris ee wadanka Faransa oo ku soo dhamaaday feel iyo farlaab iyo dhalinyaro badan oo ku dhaawacantay balse marka hore fadlan daawada haddii aad channelka cusub tahay like saar videoga channelka subscribe saaro calaamada gambalka aan furo si aysan ku dhaafin barnaamijyada xiisaha badan ee aan soo galin fanaaniinta caanka ah farxiya fiska farxiya Axmed Cadaawi iyo faadumiina Hilowle ayaa show ku balansanaa inay ku qabtaan magaalada Paris ee wadanka Faransa sida ay hore u sii shaacisay fanaanada caanka ah ee farxiya fiska السلام عليكم وايدين سلام دمانتين ومد سوماليد meel kasta aad joogtiin waxaa idin sheegaa barnaamijka France ina 8 bisha insha Allah ani faadimna aan ku dhigi doono xaflad France 8 bisha hamboogaanin hana ka maqnaanina sida noola socda kadibna waxaa ku xiga Germany 15 insha Allah haduu ilaahay idmo waa France iyo 8 bisha bye bye sida lagu balansanaa show wuxuu dhacay habeennimadii xalay fanaaniinta faadumiina iyo farxiya fiskana waxay sii tageen magaalada Paris ee wadanka Faransa waxaana video soo duubeen ayaga oo hoteelka ka baxaya sida aan wada naqaano Soomaalidu waa dad iska amar jecel inta badan aan isku talin oo qof inuu taliyaan ogolaan sida caadiga showada Muqdisho marka la qabanayo wad aragtiin waxa banaanka la keenaa askar kuwaas oo la rabo inay amniga meesha sugaan oo ay dadka carqaladeynaya ama dadka foodeynaya showga ay hore u istaagaan laakiin wadamada Yurub waa taqaaniin oo xorriyada aku badan marka lama control dadka inta badan oo macnaha dadka rabshada iyo waxaas laga macabsado inta badan laakiin Soomaali waa Soomaali ama Yurub ha joogto ama Afrika ha joogtay waa asal Soomaalidii marka waxa dhacday showga qaabka ay u qaban qaabiyeen fanaaniinta farxiya fiska iyo faadumiina oo ay qaban qaabada u diyaariyeen ayaa aad u qaldaneed sababtoo ah ma aysan keenin qaf laga baqayo ama qof Soomaali ka baqayso sida loo ogyahay Soomaali kale inta ila doo istaagto ma dhihi karto joog oo waxa waxay ka xigaan in ay isfeeraan hadii la feerina wadanka sharciga labada qofba dambiilayaal waa hadii gacan isku qaadaan marka qof walba wuxuu ku qasban yahay inuu qof kale gacan u qaadin si uu sahal u dambiilo u noqdo marka sida show ay u qaban qaabiyeen farxiya fiska iyo faadumiina waxa ka qaldaneed inay keenaan dadkan African Black ama dad xoogan oo laga baqo oo ma wadankan u dhashay African Black ah oo wadanka Faransa u dhashay African Black oo dadkan xoog gala ah oo dumar waaweyn ah sababtoo ah Soomaali dhexdeeda ismacli karto Soomaali laga mahelo dad awood u leh inay dadka noocaas celiyaan waxa dhacday marka showga marka gudaha loo soo galay oo showgii sida videoga dambe aan ku tusi doono showga marka gudaha loo soo galay ugu yaraan adiga 300 qof tigidhadii goostay oo gudaha galay oo lacagta laga qaado laga jeekimay showgii isku dubaridan oo dadkii meesha joogan oo fanaaniinta inay soo galeen oo ay camirayaan ayaa fanaaniin dadka meesha ku jira gudaha mid kamid ah wuxuu yiri waxaan rabaa inaan sawir la galo farxiya fiska marka in la fasaxan rabaa way celiyeen dhalinyarada gudaha ku jirta celiyay waxay dhahan maya marka aan ku fasaxno aad way isdiideen waa ku feeraa camal barnaamijka cunug banaanka loo saaray waxa la yiri banaanka uu aaday wuxuu soo watay koox alkulistayaal laba nin oo alkulistayaal oo dadkan oo daraagas ka isticmaala ah laba nin oo xoog leh oo dadkan daraagas isticmaala ah labadii nin controlka banaanka wixii dhamaa iridii xoog soo jiray ayagoo cid lacag ka qaaday midna isa jirin waxaana dhex mareen 300 qof ma istaagneed sida caadiga qof walba ma rabo inuu qof kale u gacan qaado oo nimanka alkulistayaal loo gacan qaado ma rabo waayo sharciga wadanka laga baqaa dadka dhan macnaha wadnaha kurkuraay waxa dhacday marka xoog soo galeen meeshii dadkii soo dhex jireen dadkii wax kale ka qaban kareen ma jira ilaa dadka la fiiri karday gacan la aadana waa ku feeraya hadhow isku dambiyaatiin waxa dhacday marka farxiya fiska waa la isku geedaamay oo dadkii taageerayaashii dadku familkeeda u badan isku geedaamay isku qariyay sidoo kale fanaanada ayaduna farxiya fanaanada faadumiina sidoo kale ayadana waa la isku geedaamay dad badan qariyay si aan cunadka nooga u soo gudbin kabacdi waxa dhacday markii loo hol waayay nimankeen waxay rabaan ay sameynayaan qofka kor yimaada rabaan ay dilayaan oo laga wada cabsaayo irida loo galbiyay fanaaniintii oo showgoodii macnaha si fiican u socdo banaanka ay tageen baawur laga saaray showgii fiicnaay oo sidaan isugu dabarnaa video ka arki doontiin hal mar wuxuu isku bedelay qaylo iyo sawaxan bal sida jawigu ahay markii ay soo galayeen iyo qaabka uu isku bedelay isla markiiba nala daawada videoshan ayaa caddayn ku filan
meeshii sidaas oo camirada sidaas lagu baashaalayay oo fanaaniintu ay dadku u camirayeen hal mar ay sidan isku bedeshay war jaakatinka farxiyo jaakatinka fadmiin waa ka tagtay fanaanada abtida ka qabta warshadiiska walaa daqara ku yaala maqlaysiin dadka aan showga joogay waxay leeyihiin farxifiska daqara ku yaala iyo waxyaabo lamid ah waxaa la sheegay xataa bal iska dhaaf wax kale fanaanada Faadumiina in maadaama qabow ba'an ka jiray meesha jaakatiin wadatay jaakatiinkiina ay meesha uga carartay sababo amni awgeed waxaa la sheegay in alkulusyaashii meesha soo galay oo nimankii oo daraagiska ahay ay jaakadii intaa sida fiidiyo kale oo dabcan hadda la wadaagi karaan shax dara ku jirta awgeed maadaama meesha ay meel yacni buuq xun ka dhacay aan ku aragnay in fanaanada Faadumiina jaakatinkeedii inta soo qaateen niman alkulustayaal oo meeshii ka soo qaateen ay dhahaan waa soo qaniimaysanay oo qaniiman u haysanaa fiidiyo noocaas waa jiraan laakiin sababo aan shax la xiriir awgeed soo bandhigi karno marka dabcan fanaaniin badana aan rajo kale inay show ku qabsadaan magaalooyinka Paris iyo sidoo kale Germany wadanka Germany marka inta badan waa in laga taxadaraa dhalinyarada noocaas oo kale ah waxa xun Soomaalidu maahan waxa showyada qasaana ma ahan dadka dhan ma ahan laakiin waa dad yar oo alkulustayaal ama saba fudustayaal ah oo muhiimadoodu kaliya ay tahay inay meeshii lagu raaxayso arkaan ay qasaan waxa la ogaayeen wadanka Germany in dhowr show ay ku fashilantay oo ugu dambeeyay showgii farxiya kabayala ay ku qabsatay meesha oo kala carar ka dhacay oo ay waxta la eriyanayo oo showgii iridiisa loo soo eriyanayo baawar ugu xararay hata la soo sawirayay waxa la ogaa sidoo kale fanaanada UK in ayaduna ay show meesha ku qabsaysay oo dhalinyaradii istirreen oo meesha joogay oo qaarkood ay foodayeen UK marka hada ka bacdi waa inay isku kadsoobin fanaaniintu oo macnaha baaqa anagu aan direena waxa waaye fanaaniintu in ay intay si tagin meesha ka taxadaraan qaabka show meesha lagu qabsaay dhalinyarada Soomaali meesha joogta dadka meesha jooga oo ma wada xuma mana wada aan foodustayaal laakiin dad yar waa dadka yarka marka waxa loo baahan yahay in loo soo kiriyo dadka African Black oo kale oo xoog badan leh ilidana loo taago si markii ay soo galaan meesha Soomaalidu qof xoog loo midkaas kale arka ka baqayaan oo markaas waxa laga wajiga dabtaan laakiin qof kale Soomaaliya kuma kartid ka joog meesha oo ka xageen oo ku fiiro mana fiiri kartid meesha meel sharci ka yaalo waa hada dadka istirtiin marka hadana askar kale karin meesha iskuulada macnaha adna kaysa karin oo lacagtaas awoodin waxaad sameeyeen African Black soo kreesta meesha irida soo taaga si aan lacagtiina iyo wixina loo carqaadeen fanaanada Faadumiina oo aan qadka telefoon kula xiriirnay waxay beenisay guud ahaanba inay jiraan wax carqalado ayadoo video caddeynaan ku aragnay hadana waxay beenisay inay wax macnaha ay jiraan carqalado waxay sheegtay in showgeeda si qurux badan ay u qabsatay bal wax yar nala dhageysta waraysi kooban oo aan la yeelanay iyo qaabka ay nala hadashay Faadumiina ما شاء الله وإذن سلانة أصحاب تغير باريس قال الحافظين الجبنة وإذن سلانة سيد قروح لبضن أو تحلي لو سوء دويس ما شاء الله لو عزومته هسا دويس ما شاء الله I love you guys see you thank you انت كسوق قشينا هذا أمهات سنتين showga buuq badan haray saasna loo kala tagay marka asxaabteena waxa la wixii ka soo kordha waan la socodsiin doonaa waxaa jirto sidoo kale dhalinyaro badan oo dhaawac jira la yiri oo yacni alkulisyaashada ay dakhreena jiro dad ay wax ku dhufteen marka ayakana wixii ka soo kordha waan la socodsiin doonaa intiina ku cusub channelka subscribe saarta calaamada gambalka furta si aad u socotaan xogahan ugu dambeeyaan aan soo gudbinayno